بسم الله الرحمن الرحيم كل طبعا ونكسن داود يا الميل والبا جوجتان كسو داو برنامجka subax lamaanta tan socotaan TV New Africa qaybta saafka Soomaaliga maalin walba barnaamijka waxa kale la daahinay walaasheeda Amira aad iyo aad baa mahadsantahay Cabdisataar barnaamijkayga subaxnimo subax walba noola barateen waqtigan oo kale xiliyadan oo kale waxaan leenahay subax wanaagsan arooriyo suuban barnaamijkayga wuxuu ka kooban yahay saddexda qaybood oo ogtihiin qaybta wararka iyo qaybta arrimaha bulshada iyo qaybta ciyaaraha bal ku soo dhawaada wararkii maanta waxaan idinku haynay daawadayaal ku soo dhawaada faahfaahinta wararka maanta waxaan idinku haynay ra'iisul wasaarihii oo deeq lacaga ku bixiyay buundadii baar dheer oo ku bixiyay 317,000 oo dollar taasoo adeegaysa arrimaha bulshada ee magaaladaas bal Cabdisataar waxaan buundada maxay anfacaysaa shacabka ama waxa u taraysaa waaga guud ahaanba sidan sawirka ka muuqata ama guud ahaanba ra'iisul wasaare khayr iyo dadaalkiisa markaa intuu gaarsiinay Soomaaliya meel walba joogto sidan ognayn baar dheer waxay jirtaa dhanka iyo marka loo fiiriyo Soomaaliya galbeedka dhankaas way ka sii fogtahay Soomaaliya marka dhanka kale loo fiiriyo hasaba ha ra'iisul wasaare khayr asagoo markaa danaynayo shacabkiisa Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ayuu lacag badan ku bixisay darteed asagoo markaa muhiimadii ugu weyn ay tahay buundada sidan ognahay waxay goysaa hubi aad u weyn guud ahaan markaa dhanka ay guud ahaan Kenya dhow laakiin hasaba ahaatee ra'iisul wasaaraha ayaa markaa muujiyay in meel walba Soomaaliya ay joogto muhiim ay u tahay
kadibna horumarinteedii iyo markaa mafaahiimteeda sida ay u ahaan lahayd mid jirtay ogaan lahayd ummadeeda Soomaaliyeed ama dowladeeda Soomaaliyeed meel walba markaa inayda ay ku hayso taana markaa waxay muhiim u tahay arrimaha bulshada markaa mar walba ee gaar ah u tahay qofka insaanka sidoo kale uu qaadi lahaa iyo dowladda iyo hab shaqaynteeda iyo qaabkii hadda uu wato markaa waxaan rajaynaynaa in qaabkii hadda uu wato inay noqoto amiira qaab markaa ummadda Soomaaliyeed kulli ay ku qanci doonto ama guud markaa guud ahaan bal soo lama dhihi karo wasaaraha maadaama bundada zaid ku dheer markaa dowladii hore ama wixii hore cid markaa danaysa inay jirin guud ahaan markaa wasaaraha danta guud iyo gudnata gaar markaa asagoo markaa u astaamaynayo taa lama dhihi karo horumar buu la rabaa wadanka guud ahaan wasaaraha cabdisataar saad ogtahay dowladda waxay u taagan tahay waa qaranka Soomaaliyeed bay u taagan tahay tada labaad shacabka waxay ogyihiin inay ama dowladda ay ogtahay shacabka ay ogtahay inay dhaqaalaha hadii bundada ay sameeyaan oo ay burburisay dagaaladii ka socday dalkaas ama magaaladaas ay burbur dhaqaale u keentay isla magaalada Baardheer taa waxay cadeynaysaa inay madaxdu ay keenayso dhaqdhaqaaqan uu keenayo kordhinta dhaqaalaha saan ognahay meesha waxa mara waa wabigaasna wuxuu anfacaya shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan bal dhanka kale Cabdisataar haddaan u baxno Soomaaliya oo dacwad ku furtay Kenya oo dhanka qaramada midoobay dacwadaas ay ku furtay ICAO oo qaybtaas ay kaga sheegtay inay tahay dacwadaas waxay carqalado siyaasadeed ay ku sameynaysaa Kenya iyo Soomaaliya saan ognahay xagga badda la isku haystay oo ICJ gaas ayaa maxkamadda ICJ ga caalamiga ayaa arintooda ku jirtay halka ICAO da ay ka fureen maxkamad xagga hawada oo ay sheegeen diyaarado ka tirsan diyaaradaha Kenya oo soo fariistay garoonka diyaaradaha ee Kismaayo bal Cabdisataar baddiga laga yaabsanayo bal hawadiina Kenya oo nagu soo xadgudubtay maxaad ka oran lahayd guud ahaan ba sidaan ognahay markii hore hawada Soomaaliya waxa laga xukumi jiray dhanka Nairobi ama Kenya guud ahaan kadib markii la soo wareegtay dowladda federaalka ama dowladii hore markaa Xasan Sheekh ee la soo wareegtay dhammaan guud ahaan markaa wasiir Omar oo markaa asaga markaa hogaaminaya dhanka iyo wasiirka maadaama uu yahay maxalli jid dowladka iyo markaa safarada hasaba ahaatay wasiirka ayaa markaa dacwad rasmi ka gudbiyay ama guud ahaan markaa Soomaaliya hawada ka shaqeysa guud ahaan ayaa ka gudbisay dacwad rasmi dhanka ICAO markaa lagu gudbiyay Kenya iyo dhibaatooyinka faraha badan ee ku wada dhanka iyo tadakulaadka faraha badan ee ku sameynayso Soomaaliya ha ahaato hawada ha ahaato markaa dhulka sidaan ognahay Kenya markaa ciidankeeda kala bixisay ama qaar ciidankeeda ka tirsan markaa kala bixisay waxaan ognahay ciidan Soomaaliyeed markaa xuduud joogay dhibaatooyinka faraha badan markaa ay u geysatay qaarkood waxa lagu sheegay in disha qaarkoodna horeyna u sii wadatay guud ahaan markaa iyadoo ku aragnaysay al-shabaab ee la dagaalamaysa laakiin ay tahay dadka saxda markaa ciidanka markaa joogay ee xuduudda markaa Soomaaliyeed hasaba ahaatay wali Kenya wixii rabtaa inay gacan saarto Soomaaliya hoos u dhigto ayadoo rabta inay ka faa'iideysato dacwada haatan la filayo ee dhacdo markaa ICJ ee dacwadii badda meel walba markaa waxay rabtaa Soomaaliya inay daqti ku saarto laakiin hasaba ahaatay Soomaaliya waa Soomaali mar walbana waxay og tahay Kenya iyo dhibaatooyinka faraha badan ee ku hayso hasaba ahaatay sidaan ognahay ama wararka haatan kale noo soo socdo waxaan si sax ku ogaan doonaa Kismaayo iyo Kenya waxyaalaha ay ka damacsan tahay iyo waxyaalaha ay u baahan tahay Kenya ay ka rabto Soomaaliya ayadoo rabto dhan walba inay daqti ka saarto kadibna markaa kheyraadkeedii ama Soomaaliya wax walba ay rabto halka inay kula wareegto inay u malayso Soomaaliya inay tahay dowlad burbursan wali aanay soo qabsanin kadibna rabto inay kaga faa'iideysato sida darteed wasiir Omar ayaa ka hadlay wareysiga oo warbaahinta hadal rasmi siiyay asagoo u sheegay in dacwo sax ay ka gudbiyeen taasoo markaa ay sababtay in diyaarad Nairobi ka soo kacday ay xuduudda Soomaaliyeed ama hawada Soomaaliyeed xuduud ay soo gashay si sharci dar ah ayadoo markaa taasoo waxa qabatay la daradii ama ciidankii hawada ee Soomaaliya ayaa waxay soo saareen cadeemaha ay ku soo fariisatay iyo nooca diyaaraddu ay tahay ee Kismaayo ku soo fariisatay iyagoo ka faa'iideysanaya Jubbaland iyo xukuumadda federaalka dhibaatooyinka mushkiladaha u dhaxeeya taa waxay cadeynaysaa in Kenya doonayso inay tafaariqiso Soomaalida meel kasta ha joogaan inay dhex galiso fidnad ay ku kala kaxeynayso dadka Soomaaliyeed oo marka hore marka loo fiiriyo Kenya ma markii ugu horeyso oo kaliya in Soomaaliya sida ay la doonayso guud ahaan hasaba ahaatee dhanka waxaa ka muuqda dadka markaa hogaamiye guud ahaan odayada dhaqameedka ama dadkii markaa xilwaanadii hore markaa Kismaayo xilwaan sareer ama guud ahaan markaa asagoo ka sheekeeyay dad ayaa doonaya in maadaama asagoo ka hadlay qadiida markaa ka dhaxaysay Kismaayo iyo Jubbaland iyo arrimaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay dad ayaa jiro rabo
in xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan Jubbaland ama Kismaayo guud ahaan inay sare u qaadaan sidii kaga faa'iideystaan arrimaha markaa khilaafaadka u dhaxeeya dowladda federaalka qaabka asaga u dhigay hadalkiisa laakiin soo lagama yaabo marka arrinka Amira inay sax tahay dad badan inay rabaan inay kaga faa'iideystaan siyaasiyiin qaarkood markay ku soo celcelinayaan qadiyada markay dhahay dowladda hawada way xiratay Kismaayo sida ay ka yeelatay sida bay Kismaayo laga dhigay sida taas oo lama dhigi karo dad raba inay ka faa'iideystaan cadaawad inay dhex dhigaan Soomaalida dhexdeeda oo wali Soomaali ay kaga sii dar way jirtaa waayo waxa la leeyahay carabtu waxa tira fariiq tasud say Soomaalida loo kala tafaruqiyo qofkuna hogaamiye uu noqon kara laakiin waxa uu shaaciyay Saraar Mr Saraar uu shaaciyay inuu ay jirto gacmaha inay xukuumaddu ay doonayso inay qaalaso ay ka sameyso Jubbaland iyadoo qolo kale oo la socota hase ahaatee 2020 saan ognahay in doorasho baa ka dhici karta Jubbaland oo taas ay dadku markasta ama siyaasiyiintu ay ku qoto dheer siyaasadda ay falanqeeyaan say u dhici karto ama say u sameysmi karto doorashooyinka ugu horeeya Soomaaliya laga qabto ka bacdi markii 30 sano ka bacdi taa waxay keenaysaa dhibaatooyin aad u fara badan oo ah xagga amniga iyo xagga iswaafaqid la'aanta siyaasadda maxaa say u dhici kartaa doorashooyinkaas ku ilaatanka Soomaaliya la filay guud ahaan marka loo fiiriyo doorashada iyo qaabka hadda dowladda ay la doonayso ayadoo rabto marka dowlad goboleedyada oo idil in marka gacanta dowladda inay ku jirto kadibna marka wixii nidaam ah in isla fahmaan isla jaan qaadaan guud ahaan laakiin sabaatay wali arrinka dowladda dad badan ayaa wali kasii dheerinaya ama kasii cararaya arrinka darteed laakiin sabaatay dowladda ayaa mar walba rabta in heshiis ee marka dhaxmarisa ayadoo marka si cad ay u sheegtay ama si laab ay dadka qaar ay u fahmeen dhanka siyaasadda marka loo fiiriyo inay sheegtay in khilaafka ka dhaxeeya Jubbaland ama Puntland ama wax walba inay tahay wax iska fudud marka aad u adkeen guud ahaan markan laga heshiin karo wuxuu ku shaaciyay isaga Saraar iyo Cabdirashiid inay dadka ku nool Jubbaland ay doorashada madaxweynaha Jubbaland ay u doortaan si sax oo sharaf leh وهاجاك إن داود يركا وحد وفاين تورك مركا أتنا جالس عتين تي في جنوب أفريقيا قبل سافك الصومالية بل قدر الحيسير كسون خشوعان أنا يفوقان
daawadayaal mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhawaada barnaamijka qoyska iyo arrimaha bulshada aad nagala socotaan TV-ga New Africa qaybta afka Soomaaliga wax waliba bal inaan kusoo dhaweeyo barnaamijka Amira maxaan weysaa maanta barnaamijkayga waxaan ka hadlaynaa ardayda ama jaamacadaha ka baxdo ama qof kasta noloshiisa dad baa wax isweydiiyaan nolosheedii maxaan ugu noqon waayay qof naajixa ama qof maaragtay horumarsan maxaan u noqon waayay qofka horumarsan wala isweydiiya su-aashaas konton qof ama malaayiin qof bay kusoo noqotaa sababtoo waxay ku noqotaa qofka laftigiisa wuxuu oranayaa anigu nolosheedii waxa ay ku badbaadin karaa ama u horumarin karaa horumar naftaydan u horumarin karaa inay lacag aan haysto taa xaqiiq maaha taasna sax maaha xagga cilmi ahaan ama xagga naf ahaanba qof dad baa jira lacag leh aan naftoodii aan horumarin karin haddaba horumarka ayaa maanta ka qofkii siduu u noqon karaa leader ama qof ناجح أما قف يعني هجامية ما هي هجامية أنا نقول حتى قف إنه هرمر سين يحي ونفتي سوى هرمرين كرو أما الشعب كيسي يضد كيسة نفط هذا يوجه الرئيسة أنت الشعب مرير أما قف هذا نو هرمرين الحين نفط هذا هرمري نفط هذا صد هرمرين الحين وما برنامج كي كان كشكين أنا قفك سوى هو هرمرين كرا نفط هذا يوجه الرئيسة عبد الستار عقبها الدنيا واد أركز إني عقبها فربضن أوقفكم مريا عدنا هاي شعب كصوماليات خاصة عقبت دوجه الرئيسة أيانا نقول استسلامنا ما استجيبنا يعني راح خلاص أنا مهر مريكرا أنت حسين كبلان هطبع قفك مركو دوني إنه هرمره وإنه أهداف يشع وقفك قرى وحسن ربا وإن نسميه إذن كإلهي إذنك إله وينو راعية طبعا إذنك إله راعين أو ده كاس نوحا كل إذنك إله وحانا راعسنين ده ما هرمرين كرتين وحقوقه الرئيسة إن الصوص ارتد أهداف هذا كو هرمرين لحيد وحن دونية إن الشقاهلة أما وحن دونية إن الحفيز قونية أنفرطو وبوينتي كوباد سوى أفرن كرا إنو دراسيه أما بالعمل بانهاي سيدان شقاء آن أهلي كرا وينو halka calaamad su'aal u saara waa inaan koorsooyin fara badan aan qaato waa inaan meelo fara badan ka dhiibo waxa raacsan pointyada soo socda ayaa ku fududeynaysa hadafkaaga marka xadidid waa marka ugu horeysa ayaa qofka hadafkiisa markuu xadido ayuu horumari karaa taa labaad subaxda salaada hore qofka inuu kaco ayaa uu ku horumari karaa waayo salaada subax waxa la arsaaqdiyo hooyooyinkayga يا صباح يا رزاق يا فتاح يا اليوم يا الله يا كريم يقول عربي أقوم بينتاس يراهضان صباح الصلاة ظهره وحلي ملائكته أياب بركة يا رزاق ضدك وقيبسة كهردنا وحن كله هردة القافلين ويانا وحن كله يا والله نافع قفك الصلاة صباح مركز كعديد أضحى في سيدة التكتيت أما ميلها ضد بهانتي أما هدفك ضد بهانتي صباح الصلاة ظهره وحي كوف ضدين أضا صون أغلب برقدي صوكعة ما قلني تنبيع صوكعة صلاة الصباح واي وحي أهداف تادي مع النمو أيي كو حقيقينيسا تصديحات وحويا سيداد قفك وقنعين كرتا أما أسين كرتا وحا فكرة الله ضحي قفك تدكو ويكلا أفميشار سين أفميشار كما تقانا أفميشار كوحوين قف سو قفك وقنعين كرا أما أفكارتي سيارة أو فضوط أو قفك فهمي كرا وجيبن كرا شارك مركا سيكلا أو فيرل mararka qaar waxay noqotaa qofka uu adeegsanaya si qalad oo fara badan marka qofka wuxuu leeyahay qof hadal badan waayo qofka nagada badanaa dadka qaar ee u isticmaalaan laakiin maahan in afnishaarka anagu waxaan u naqaana ma taqaana waa qofka si hadalkiisa si siyaasada qofka uu doo qanciyo wuxuu baahan yahay uu ka qaato ama uu siiyo afkaartiisa oo kale ayaa u naqaana qaybta afraad waxa weeyaan نفط هذا وحلي حب لنفسك ما حب لأخيك ما تحب لنفسك سو حديث كويري نفط هذا واحد وجه عشا ولا كالتش على حاسين قف سوق أنا وحن كل أنا نرش هذا عرق هذا أنا قليل تشنات نفط هذا تجي قف كلها النقن قف وحن كل هاي دق فر بدن هالنقن قف عرب بدن هالنقن
waxay dadku tijaabiyeen oo fara badan ay tijaabiyeen weliga dad baa waxay yiraahdaan tashanaad waxa weeyaan waxaad ama talixaadan raahday waxaad garataa inaad tiraahdid maya waxaa jira dad wax noloshooda dhan waayahay dadka ku yiraahda oo noloshoodii taas ay ahamiyada noloshoodii ama naftiisi uu saa ku waayay waxa barata maya waxa ahamiyadaada ama naftaada ama mustaqbalkaaga burburinaya waxa tiraahdaa maya baro kelmadda maya oo maya wax kasta ha ku oranayne waxa ahamiyada ama noloshaada ama diintaada ama waxa noloshaadii ka hor calqalad gelinaya maya dheh waqtigaaga waxaad u sugtaa sad u hormarin lahayd naftaada taada labaad waxa ha noqon qof aan oo yiraahda may bari ka dhig saadan ba ka dhig saakub ka dhig waxa dib u dhiga hawlihiisa ama u soo saara inuu wax kasta u soo saara ha u soo saarina xaqiiqda ama dib ha u dhigin shaqooyinkii lagu talagalay maalinta loo talagalay ku qabo dib ha u dhigin waxa dib loo dhigo waqtiga ku dhaafaya waqtiga waxa leeyahay sidaas saaf weeyaan haddaadan jarin isaga ku jaraya haddaan ka hadalno haddana horumarinta nafta waxa dadka waxa la kulma nolosha inay yiraahdaan lacagta horumarisa dadka lacagta ayaa sameeya bil aadan ayaa sameeya hadda cabdisataar saad ogtahay boqolkiiba aan rahno ilaa 60 ilaa 70 qof ayaan ardayda qalin jabisay ama 40 aan rahno boqolkiiba 40 ayaan shaqo ka helin dalkii oo mid kasta shahaadadii haysto oo oranaya waxaan sugaya xafiiskii la talagalay ayaan sugaya taa ilma ay noqon kartaa maya qofka adiga naftaada shaqadaada wixii jaamacada ka baxday ma aha laabud inaad ka shaqaysid laakiin waxa fiican inaad siyaaro siyaasada mashruuc yar inaad samaysid waalidkaaga uu ku kaabo ama ehelkaaga ay ku kaabaan aad tirahdid mashruucaasan doonay inaan sameeyo taajirnimo inaad ka bilowdid zeroga dad fara badan baa zeroga من الصفر برنامج بابا جرا أو قف قبل من صفر كا أو كهر مرة نولشيسا بل إن أميرة إن جود أهل مركان فيرنا هدي هر مرة كي قف كإنسان كقاب كهر مرة لها أبي قاب كنفستيس كنت طور لها تنشيك نمانته وحوالينا يا أفراد بدر مركانا جنا نيجو حس ما تضرب من ناشيكنا وقت جنا ما تينو نسمعين جود أهل إن واجك داودي كا وحوها إن ولا شيء أمير إنك تلقى شيء أرما مركا قف كإنسان كقاب كطور لها فرديا قف أصيق شخصيا كدبر مركا dadka ugu dambeeyay oo marka dadka ay ku tilmaameen almu'min kala khayf Allah حينما نزل نفع يعني meesho mu'minka qofka mu'minka uu ku soo degto waa sida roobka amal waa dadku anfacaya guud ahaan marka haduu ku soo degto laakiin sabaatay bal isbuuc dambe ama waqti kale ba dib ugu dhigana guud ahaan bal qadar raxaysiin isku soo noqosho waxan anaga fogaan
daawadayaal kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad baa qeybta ciyaaraha oo TV-ga New Africa TV aad ku daawataan maalin walba xilligan oo kale. Cabdisataar, maanta maxaan noo haysaa ciyaaraha kooxaha ay ciyaareen? waa hagaag guud ahaanba waxaa jiray markaa ciyaaro aad u xiiso badnaa ee xariirta dhacay qof walba markaa naadigiisa iyo qaabka markaa filay ay ku kala dhamaatay sidaan filay dhalinyarta markaa nagu taxnaamay guud ahaan markaa nala socoto TV-ga nala socoto waxaan filayaa in si fiican ay kaga bogsan doonaan ciyaaraha iyo qaabka ay u dhaceen goolasha iyo qaabkii loo kala dhaliyay iyo cidii badisay cidii markaa hoggaanka hadda hayso guud ahaan hasaba ahaatee waxaan ku bilaabay dhanka iyo Ingiriisiga maadaama Ingiriiska iyada ay tahay asaasi markaa loo fiiriyo ciyaaraha adduunka qaabka markaa loo ciyaaro hasaba ahaatee maadaama koobka adduunka ugu badan ayada xaggeeda ka soo baxan ama la dhahaba wadankaas wadan Ingiriiska sidiisa waa wadan sports guud ahaan markaa xiiseeyo si sax u xiiseeyo hasaba ahaatee xalayta waxa la ciyaaray Premier League ama ciyaaraha horyaalka Ingiriiska guud ahaan waxa xalayta ciyaaray Manchester City oo sidaan filayna Manchester City waxay kula tartamaysay hoggaanka Liverpool ayada markaa markii hore 5 dhibcood oo kaliya laga sareeyay hasaba ahaatee Manchester City ayaa xalay waxay u baxday Wolverhampton hasaba ahaatee waxa lagu badiyay Manchester City dadka qaar waxay isleeyihiin Manchester City ma badisay soo laga badiyay bal waxay ku badisay 2-0 sadarteeda hoggaanka Manchester City waxay kula tartamaysaa naadiga Liverpool guud ahaan baa ahaatee ciyaaraha kale waxa ciyaaray Manchester United iyo Newcastle iyo Manchester United sidaan ogeyn Manchester United ayaamaha degadii ugu dambeysay ama xilligii ugu dambeysay dhibaatooyin fara badan baa ka haystay in maxaa la dhihi jiray ciyaaraha ama guud ahaan qaabka ciyaaraha u ciyaarayso ayadoo markaa sanadkan la soo dhaafay maxay yeeleen iska dirtay 3 weeraryahan oo koow oo ahaa ciyaaryahankii qadka dhexe Hareere oo markii hore Paris u dirtay oo bedelkiisa la keenin ciyaaryahankii weerarka u dhigay Lukaku oo asaga weerar ahaa oo bedelkiisa la keenin ciyaaryahan Sanchez asagana markaa ay dirtay aan bedelkiisa la keenin guud ahaan asaba ahaatee Manchester ayaa weli waxay la dhigaysaa qofkii markaa goosha u dhalin lahaa ayada markaa weerarkeeda u fiican yahay ama ciyaarteeda qaab ciyaarkeeda ay u fiican yahay laakiin asaba ahaatee mar walba waxay godka u gashaa naadidii yaryar guud ahaan hasaba ahaatee xalayta Manchester United waxaa lagu badiyay 1-0 sida darteeda Manchester hoos ayaa u sii degtay guud ahaan Manchester City weli waxay kula lantamaysaa qaybteeda labaad guud ahaanba hasaba ahaatee xalayta waxaa kala ciyaaray naadiga Arsenal iyo Bournemouth naadiga Arsenal ayadana markaa sida darteed waxay meesha ay khasaare kala kulantay waxa u maleysaa naadida weyn markaa ayadana mashaakil fara badan dhankeedana kaga haysto hasaba ahaatee Manchester United iyo Arsenal ayadana loolan fara badan oo markii hore ka dhexeyn jiray Captain Keane iyo Vieira ay ahaan jireen markaa ciyaaryahan aad iskaga soo horjeeda markay wada ciyaarayaan labada naadi markay iskaga soo horjeeda hasaba ahaatee Arsenal ayadana waxaa lagu badiyay 1-0 sida Manchester camal lagu badiyay Arsenal kooxdii dadka ay aad u xiiseeyaan ayaa xalay kooxda yar ee hadda cusub dadku ay raacaan cusub yihiin oo aad uma taageerada Soomaalida uma taageeraan sana aragno dhalinyarta Arsenal bay taageeraan Arsenal laga badiyay waxa yarana hadin leeyahay dadku noqonaysa ama dadku taageerayaasheedii markii loo fiiriyo Amira horyaalka Ingiriisiga markii loo fiiriyo maaragtay ma jirto naadi yar sidaan ognahay naadi weyn baa jira laakiin naadiga yar mar walba waxa la ogyahay naadi weyn in hal ay ku jiraan inay garaacaan oo inay ka badiyaan sida u jirta Manchester United waa laga badiyay Arsenal waa laga badiyay Chelsea markaa waa laga badiyay markaa waa badisay Man City maftarkeeda gadaal waxa u dhigay badis waaye waxa kaliya hadda socda Liverpool waa iyada markaa mar dirqa ay ku badanayso mar si ay ku badanayso hasaba ahaatee Chelsea ayaa wadina waxa wada ciyaaray Southampton ee wada ciyaareen markaa ciyaar aad u adag ahayn laba naadi markaa aad u adag Ingiriiska marka loo fiiriyo ayaa Chelsea waxay ku badisay 4-0 kaga badisay Southampton sida darteeda kabtan Outobare Lampard ayaa weli wuxuu ku socdaa goolal sidii markii ciyaariyay waqtigii barajada kadib sida uu galay ilaa haatan wuxuu ku socdaa goolal markaa sax markaa la taaban kara asagoo markaa u ciyaari jiray ciyaaryahankii ugu gool badnaa ahaa kooxda Chelsea asaba ahaatee xaaladda Chelsea waxay ku badisay 4-0 waxayna kaga badisay Southampton oo ognahay waa markaa loo fiiriyo naadi weyn haatan maadaama ay qaaday ama ay ku sagatay mar badan inay qaado koobka iyada markaa kaalinta labaad kaalinta saddexaad mar qaar ee ka dhacday guud ahaanba hasaba ahaatee dhanka kale waxaa ka hadlay Mohamed Salah tababare club ayaa ka hadlay Mohamed Salah iyo dhaawacii ka soo gaaray ciyaartii la baxeen Leicester City sidaan ognahay waxay ahayd ciyaar aad u adag oo Liverpool dirqi ay ku badisay hasaba ahaatee Salah ayaa markaa dhaawac halis ka soo gaaray ayuu club ka hadlay kuna eedeeyay oo si sax u eedeeyay maadaama sida dareemaysa tababar club waa tababaro markaa ciyaartooyda aad u jecel ka soo qaad markaa hadii laga sii tagaba saddex xidig markaa weerarka oo ciyaaro sida Salah iyo Mane iyo Firmino saddexdooda lagama taabto markaa tababar club aad u xanaaqay asagoo markaa ku arkay Mohamed Salah oo ku dhutinayo
dhanka iyo markii ciyaartii soo dhamaatay asagoo soo galay maxaa la jiray qolkii labiska markii qolka labis bedelka guud ahaan markii dhan walba loo fiiriyo hasaba ahaatee club ayaa markaa ku eedeeyay maxaa la jiray xidigadii ama laacibintii u ciyaaray Leicester City ama daafici markaa ku dhaawacmay Salah oo dhaawac halis u gaarsiiyay guud ahaan markaa ciyaarta gudaheeda ayadoo lagu jiro markaa ciyaartii nihaayadeeda ayadoo sii mareysay hasaba ahaatee club ayaa si sax u dheelayay sheegay in Mohamed Salah saa lala dhaqmo ma ahayn waxa way waa laacib markaa anaga sidana noo yahay asaasi markaa guud ahaan aan ku tashanay guud ahaan markaa hasaba ahaatee dhanka iyo sare intaan ka bixin Mohamed Salah waxa jira warar soo gaaray oo qolada kubadda cagta ee masaarida ama leeyahay Egypt ayaa waxay sheegeen in ay codsadeen in loo sii furo hadba inuu laacibiinta ugu fiican uu yahay adduunka in loo sii daayo isagoo codayaan oo laacibka ugu wanaagsan caalamka uu noqdo Mohamed Salah bal in carabta gudaheeda marka loo fiiriyo dadka ugu faraha badan ee marka baraha bulshada ee ugu muuqda waa dhanka masaarida guud ahaan sida darteed Salah wuxuu ahaa marka dhanka masaarida wuxuu ahaa qofka marka ugu horeeyay masaarida ay ku taageeraan horumar ay siiyaan laakiin xagaaga waqtiyada dambe waxa dareemaysaa in masaarida qaarkood kalsooni kaaga noqday Mohamed Salah dhacda darteed iyo hadallo qaar marka asaga ka yiri Salah laakiin hasabaatay Mo Salah ayaa hadda soo noqday xagaagan sidiisa hore ciyaaryahankiisi ama ciyaarihii qaabkii hore u ciyaari jiray sidii saxda ah marka haatan ku soo noqday bal dhanka kale ha u tagno Serie-A ama Talyaaniga ayaa waxa dhacay ciyaar aad u xiiso badneed ciyaar marka la wada fiilay qof walba marka indhaha ku hayay Serie-A aad u xiiseeyay waxa la ciyaar xalay Juventus iyo Inter Milan sida ognahay Juventus iyo Inter Milan waxay ahaayeen laba kulantan dhanka iyo horyaalka xagaagan guud ahaan Inter marka hoggaanka ku dhigneed ayaamahan oo dhan Juventus hal mar oo kaliya baraaji gashay ayadana hoos u dhacday ama laba baraaji gashay hoos u dhacday Inter marka hoggaanka ku dhigneed maadaama ciyaaryahan Lukaku ciyaartoy fara badan ee iska bedeshay hasabaatay xalayto Ronaldo iyo tiimkiisa iyo Lukaku iyo asxaabtiisa ama Sanchez iyo asxaabtiisa ayaa xalay wada ciyaaray ayadoo marka ciyaar korol meesha ka dhacday leesmari waaye oo ciyaarta mar walba barbar dhac ay ku socoto barbar dhac hasaba ahaatee ciyaarta gooshii hore waxa uu dhaliyay Dybala ayaa dhaliyay asagoo marka u dhigay ciyaarta Manuel Pjanic u dhigay kadib waxa rigoore ka dhaliyay Martinez ayaa rigoore ka dhaliyay hasaba ahaatee ciyaarta si dhamaanayso si gabagaba tahay ayaa Higuain meesha ka soo baxay gool kale ka dhaliyay sida darteed guusha waxa ku raacday naadiga Juventus sida darteed Serie-A waxa gacanta hoggaanka u soo qabtay dadkii hore u ahaan jiray sida ognahay Juventus 7 sano isku xigto ay horyaalka gacanta ku haysaa wali waxay taagan tahay horyaalka wali waa haya wali kama sii tagin hasabaatee Inter ayaa sanadkan soo muujisay horyaalkana qabatay hasabaatee Ronaldo asxaabtiisa ayaa wali ku soo noqday ayadoo marka garoonka inta ciyaarta la ciyaaray la siiyay Ronaldo marka ciyaarta ninka ugu wanaagsan guud ahaan lagu tilmaamay inkastoo gool oo dhan laakiin qaabka baasadka uu celinay qaabka marka kubadda uu shuuday qaabka kubadda uu oran karna asxaabtiisu inkastoo dadka waxay lahayn goolashiisa 700 ah buu dhameystiray sida dadka aanay uga shakin ama kooxdiisa aanay looran isagu waa anaani ayuu wuxuu siiyay kooxdiisii fursado inay gool ka dhashadaan ay goolasha ay dhashadaan ama baaskooda uu badiyay bal sidaan ognahay Amira guud ahaanba ciyaaryahan walba magac yeesho marka xirfad ciyaareed leh oo xil badan soo ciyaar ama daadiisa ay weynaato waxa ogaanaysaa naadiga ku hareeraysan hadda waxa ognahay naadiga Juventus xidigada faraha badan marka hore Juventus ma iman jirin laakiin Ronaldo markuu imaado waxa jira xidiga faraha badan hadda Juventus imaada xidiga badan bixi jiray ka rabay inay Juventus ay ka tagaan inay ka tagaan Ronaldo dartiisa u jooga sida darteed waxa dareemaysaa ciyaaryahan Messi ama Ronaldo meel ay soo galaan badan xidigada waxay ixtiraamaan ciyaaryahanka qaabka xirfadka u ciyaarayo qaabka u socdo kadib sida darteed ixtiraamka ciyaaryahanka loo hayo dartiisa waxay u joogaan naadiga baaqi ku noqonaa sida darteed Juventus waxay noqotay marka naadi hore u socdo ayadoo wali ay rabto inay qaado koobka Champions League buufanna wali oo u tartamayo inuu rabo championka xiiso u qabo asagoo ka tagay champion dartiisa oo tagay dhanka iyo Francisca tagay oo naadiga marka uu weyn Francisca tagay haddana ka soo noqday haatan ku soo noqday Juventus asagoo mar ciyaar marna fadhiya laakiin hasaba ahaatee ma Buffon iyo Ronaldo iyo asxaabtiisa sanadkan ma championka qaadi doonaan mise horyaalkooda oo kale gacanta ku hayeen oo wali looga lontamay bay gacanta ku hayn doonaan guudaan dhanka kale waxa dhacay ciyaar aad u xiiso badan Napoli iyo Torino marka ayagana marka xilfaatan aad u adag ka dhaxeeyo Napoli ayaa marka waxa ku dhamaatay barbar dhac ever ciyaarta ku dhamaatay oo gool la iska dhadhin waayo naadiga Napoli marka Carlo Ancelotti hogaaminayo iyo naadiga kale marka Torino guud ahaan marka isla mari waayo ever ciyaarta ku dhamaatay guud ahaan bal dhanka kale Spain ha u gudbo ciyaar waxa jirta marka aad loo sugayo qof walba marka dheelay Ronaldo ama Messi oo dheelay qof walba indhaha ku haya laakiin marka ciyaarta si xiiso badan tahay way ka sii adag tahay hasaba ahaatee waxa wada ciyaaray Barcelona iyo Ishbilia
ayaa ciyaarta waxay ku dhamaatay bal dadka qaar maxay filayeen Barcelona sideeda way ku soo noqotay sideeda guud ahaan marka waxay ku badisay 4-0 gooshin ugu dambeysay waxa dhigay Lionel Messi sida darteed Lionel Messi wuxuu noqday marka xidiga marka ugu laacibsan ama guud ahaan marka ee ka soo muuqday si sax ka soo muuqday garoonka ama guud ahaan marka ciyaarta gudaheeda intii lagu gool jiray hasab ahaatee guud ahaan ayaa Barcelona ku badisay 4-0 taa marka guusha ay ku raacday marka kadib Barcelona ay noqotay ciyaaryahan ama guud ahaan saa hormar iyo fiican ay ku gaartay guud ahaan bal guud ahaan daawadiya intaan gudbin Messi oo laga fariisiyay ciyaaraha laba ciyaarood ciyaarta mu ka qayb galay bal Messi waxa laga fariisiyay guud ahaan marka tan lagu xukumo ma ahayn tan horyaalka iyo Barcelona oo ciyaaraha ma ahayn waxay ahayd tan guud ahaan marka dhanka iyo maxaa la dhigi jiray oo ciyaari jiray hasab ahaatee ciyaaraha guud marka waxa dhacday ciyaaro aad u halis badan marka dadka qaar ay filayeen sidii u socoto guud ahaan marka ciyaartooyda sidii u socoto hasab ahaatee ciyaaraha oo xalayta dhacay markan ka soo tagnaa ciyaaraha guud ahaan dadka xiiseenayo ayaa marka dhanka iyo Spain loo fiiriyo ayaa waxa dhacday kulan marka xiiso badan ama xidig marka dadka indhaha ay ku hayeen iyo qaabka u socday dadka indhaha ay ku hayeen hasab ahaatee xidiga ayaa ka soo muuqday asagoo ka hadlay guud ahaan carqaladeynta iyo qaabka u socdo ciyaaraha loo ciyaarayo ayaa marka asagoo sheegay in ay rabto tatawur in lagu sameeyo ciyaaraha Spain guud ahaan hasab ahaatee weli ayada wali isku kortaagaya ma sidii hore u socon doonta mise dib bay ugu noqon doontaa ciyaaraha iyo qaab ahaan ee u socoto hasab ahaatee ciyaaraha magacyada waxaa la filayaa qof walba marka Soomaaliya marka xiiseeya ciyaaraha ayaa marka dambe waxaa soo tabin doonaa ciyaaraha dalka Soomaaliya guud ahaan anagoo weli ku jirno oo weli waxyaalaha fara badan noo hagaagan ayaa waxaan filaynaa dhanka iyo arrimaha Soomaaliya in ayadan gudaha aan la gali doono qaabka marka ay u hagaagi lahayd ciyaaraha iyo qaab ahaan ee ugu socon lahayd ciyaaraha guud ahaan hasab ahaatee dadka waxay filayaan in qaabka Soomaaliya maxaa loo soo diiwaan ciyaaraha gobolka ee socod maxaa loo soo diin waay guud ahaan marka laakiin hasab ahaatee taane waxay noqon doontaa qaab aan socon doono waxay dadka inay ciyaartooyda Soomaalida xirfadaha leeyihiin caalamkan insha Allah caalamka ka qayb galayaan ciyaaraha bal jiraan ciyaartooy qaarkood ee ka soo muuqday caalamka ka soo muuqday hasab ahaatee daawada guud ahaan waxay arrimaha ciyaaraha inay gol talgalnay nagala socotaan TV-ga New Africa qaybta afka Soomaaliga waxaan iga tagaynaa sida iyo nabadgelyo kahor waxa barnaamijkan intaahina anigoo ah Cabdistaar Al-Ahmadi waxa kaloo intaahina walaasheeda Amira Samir inta barnaamij nooca kala kulmayna sida iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.